wararkii ugu dambeeyay qodobada qaybtan ku eegi doona waxa ugu waaweyn halkoo maraya xiriirka Kenya iyo Soomaaliya miyo usoo madaxweyne Xasan go'aan ka qaatay warbixin xasaasiya Masar oo madaxweynaha Kenya kala hadashay qodobo ay ku jiraan xiriirka Soomaaliya iyo Kenya iyo martigelinta Axmedow kulamada ka dhacay Qaahira iyo fariinta filla Soomaaliya ayaan ku soo gudbin doonaa madaxweyne Xasan oo laga soo xigtay inuu geed dheer iyo mid gaaban u fuulayo baajinta mooshinka ka dhanka ah ra'iisul wasaarihiisa warbixin xasaasiya iyo filla Soomaaliya oo qaadatay tallaabo lagu badbaadinayo xukuumadda Xamse ayaan ku soo gudbin doonaa maxaa ka dhacay shirkii golaha wasiirada ee maanta ka qabsoomay filla Soomaaliya yaa shir gudoominaya shirkaas qodobada diiradda lagu saaray ayaan faahfaahin doonaa iyo sidoo kale Idris Cabdi Dhaqtar oo shaaciyay sababta shacabka reer Koonfur Galbeed loogu ciqaabayo Puntland inay tahay hal sabab daraaddeed qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa muuqaalkan daawadayaal gaarsiiya dadka Soomaaliyeed warbixinada iyo wararka degdeg ee ku saabsan arrimaha gudaha oo aynu qaybtan ku eegayno soo dhawaad qodobkeena koowaad ayaa ku bilaabaya halkuu maraya xiriirka Kenya iyo Soomaaliya maanta maxaa kala socotaa in dawladda dhexe Soomaaliya fariin ay gaarsiisay Qaahira ku saabsan arrinta Kenya maadaama madaxweynaha Kenya William Ruto uu joogo isla Qaahira dalka Masar sida aan ku helnay warbixino hoose filla Soomaaliya ayaa bilowday tallaabooyin lagu dacweynayo loogana dacwoonayo Kenya dawladda dhexe Soomaaliya ayaa la soo warinayaa inay ku howlan tahay inay qaadato tallaabooyin waaweyn arrintaas waxa bilowgay ku kala qaybsamay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda kadib soo jeedintii Xamse ee ku saabsaneed joojinta qaadka iyo sidoo kale in loo yeero safiirkii Soomaaliya u fadhiya Kenya Jibriil Ibrahim Cabdul balse arrintaas waxa ka soo horjeestay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Axmedow oo hadda karkarinaya geed fadhina u ah mooshinka ka dhanka xukuumadda Xamse Cabdi Barre ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya warar hoose waxay sheegayaan in dawladda Kenya u sheegtay Axmed inaan lagala bixi doonin dhabarkood difaaci doonaan labaadii ugu badnaa ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya warar hoose ayaa sheegaya inay jiraan kulamo dhacay oo dhaxmaray xildhibaanadan iyo hogaamiyaha Jubbaland Madoobe sidaan warbixinta ku helnay wasaaradda arrimaha dibadda xubno joogan ka soo xiganay dawladda Soomaaliya ayaa madaxweynaha Masar u dirtay warqad ku saabsan cabashada ay ka yihiin Kenya ee ku saabsan in la fashilinayo qorshihii dawladda miyuu madaxweynaha Masar kala hadlay mise lagu xaqiijiyay warbixinta laakiin xogtu waxay tibaaxaysaa in dawladda Soomaaliya ay dalbatay in dawladda Masar ay kala hadasho madaxweynaha Kenya oo ku sugnaa maalmahan magaalada Qaahira ee dalka Masar halkaas oo uu ka waday kulamo gaargaar wixii ku soo kordhay qodobkaas waan idin soo gudbin doonaa mooshinka Xamsana meel xasaasiya ayuu taagay dhinaca kale filla Soomaaliya waxa la leeyahay waxay doonaysaa inay badbaadiso xukuumadda gaar ahaan madaxweyne Xasan ma aha markii ugu horeysay oo mooshin laga keeno Xamse Cabdi Barre balse intii hore meel markaasi aan fogeyn ayay mooshinadoodu ku bajareen maadaama filla Soomaaliya ay ku fara adeegaysay kana bixinaysay dhaqaale xooggan dadaal iyo waqti badan ay gelinaysay iyadoo markaasi intaasi u sii dheereed taageerada buuxda ee maamulada gaar ahaan mooshinadii hore waxa diidanaa xitaa Jubbaland oo ka soo horjeeday in Xamse xilka laga qaado xaalku maanta waa ka duwan yahay midii hore oo mooshinka ra'iisul wasaare Xamse laga keenay waxa la leeyahay waa ka gudawan yahay maantana raggii shalay difaacay ayaa dhabarka xijiyo doonaya in xilka laga qaado Xamse Cabdi Barre haddaba waxa maanta riixaya mooshinkan Jubbaland oo geed fadhiwa xildhibaanada ka yimid Jubbaland ayaa sidoo kale aan ku kala qaybsanayn oo ku midaysan go'aankan waxaana iyadana safka la galay hogaamiyaha Puntland oo markiisii horeba isagu rabay xilka ra'iisul wasaare in la siiyo waxaasa iyadana mooshinkan qayb xoogan ku leh sidaan warbixinta ku hayno xildhibaanada ka yimid Puntland oo ka soo horjeeday xukuumadda Xamse iyo filla Soomaaliya waxaana ku taageeraya sidaan warbixinta ku helnay
maamulada kale xildhibaana ka soo jeeda oo iyagana la dhayalsan karin kuwaas oo kala taageeraya shakhsiyaadka qaar. waxaan shaki ku jirin in filla Soomaaliya ay markaan sida warbixinta ku hayno weeyaan awood kasta isugu gey doonto in mooshinkan oo ka adag kii hore la fishilay. waxaase ku bixi doona arrintan dhaqaale xooggan, ballanqaadyo, waqti iyo farsam. xamse cabdi bare ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo la bixiyo waxa dad badan ay qabaan inay jab ku noqon doonto filla Soomaaliya marka dhinac laga eego, lagana reebo xubnaha filla Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan UPD ee doonaya xamse in la bixiyo. waxayna guul aan la qiyaasi karin u noqon doontaa hogaamiye midoobe oo haddii shalay isaga weerar lagu ahaa inta uu soo jibiyo kuwii isaga markaasi ka horreeyay weerarka ku ahaa, maanta isaga oo weeraraya kuna soo qaaday xayndaabkii filla Soomaaliya, guushiisana lagu cabiri doono sida uu u bixiyo xamse cabdi bare oo u arko nin loo adeegsanayo isaga. madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa soo maray ra'iisul wasaare aad u badan uguna dhowaa, midka hadda uu heesana uga sii dhowaa waxaana la dhihi jiray saacid ama cabdi faarax shirdoon saacid. wax kastoo shaqadii xukuumadda ahayd waxa la wareegay madaxweynaha, wax kasta waxaa loo aadi jiray xafiiska madaxweynaha. ra'iisul wasaaruhuna wuxuu qaabili jiray oo kaliya wixii madaxweynaha toos uu ugu soo diro. madaxweynaha wuxuu dalka ka dhigay berigaas sida la aaminsay sida maanta oo kale. ugu dambayn fishilkii musuqii iyo maamul xumadii ayaa baahay, waxaana madaxweynuhu go'aansaday in ra'iisul wasaaruhu waxoo dhan dusha laga saaro laguna saantirto, kadibna la bixiyo. ra'iisul wasaarihii si kasta ayuu uga garramay, u garnaqsaday wax kastoo xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale kiisaba laga sameeyey inaysan jirin wax isaga lagu eedayaba ciddii kama dhagaysane dhagah ayaa laga furaystay. iska daa wax kale xitaa waxa looga hor istaago loo diiday inuu baarlamaanka ka qudbeeyo oo istifaaco sida sharcigu uu yahayba abow qababa. sidaasina waxa lagu bixiyey cabdi faarax shirdoon saacid. qalad waa garya gardarro, isaga ayaa qaatay qaladaadkii, laakiin waxa la magacaabay nin lagu magacaabo cabdiweli axmed maxamed yulka, kadibna la keenay. kadibna waxay isku dhaceen isaga madaxweyne xasan kaba ayaa lala gashaday xasan sheekh maxamuud oo wuxuu la kulmay ciqaab uusan filay. taariikhdu way soo noqotay. hadda waxa uu keensaday saacid oo laba jibaarkiisa ama saacid Pro Max ayay qabaan dadku xamse inuu yahay. taas ayaa ka dhigan mid suurtagal ka dhigaysa in la fila karo jidkii hore mid ka duwan, laakiin tusaale ayay haystaa filla Soomaaliya oo ah in xamse haddii uu baxo ciyaar aan lagu joogin. qodobkaas wixii ku soo kordha waan eegi doonaa. iminkana balaynu eegno haddaba sida ay xaqiijinayaan warbixinno soo baxaya shirkii golaha wasiirada ee maanta culays weyn ayuu lahaa. waxaa shir guddoominayey ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda dhaay. bayaan ka soo baxay shirkan ayaa lagu sheegay sida warbixintu xusayso in golaha wasiiradu ay isla qaateen go'aanno waaweyn. ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad cabdisalaan cabdi dhaay ayaa waxa uu ansixiyey heshiisyo ku saabsan amniga iyo sidoo kale internetka. kulankan waxaa lagu meelmariyey heshiis is-afgarad oo wada shaqayn guddiyada warbaahinta. kulankan golaha ayaa sidoo kale lagu bandhigay warbixinno ku saabsan amniga iyo howlgalladii ugu dambeeye ka dhacay dalka. golaha ayaa diiradda saaray dardargelinta dadaalada dawladda ay ku gaarsiinayso bulshada adeegyada kala duwan. waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixinno ku aadan horumarka markaasi karaanka aadanaha iyo sidii kor loogu qaadi lahaa adeegga bulshada. tiirka arrimaha bulshada oo ah mid muhiima horumarinta ummaddana Soomaaliyeed muhiimo ayaa waxaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad uu faray wasaaradaha ku shaqada leh in la dardargeliyo arrimaha la xiriira adeegyada bulshada ee dawladdu ay gaarsiinayso shacabkeeda. taas ayaa ka dhigan go'aan kala weyn. dhinaca kale dawladda dhexe Soomaaliya ayaa ka digtay hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga
ama digniintaasi u dirta guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaana digniintaa u dirta dhammaan hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka howlgala Soomaaliya si aysan ula shaqayn al-shabaab iyo daacish. bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in hay'adaha aysan la macaamili karin dhaqaale u yaboohi karin isla markaana aysan u hoggaansami karin amarada uga yimaada al-shabaab. in kooxdan ay bilowdo qorshe baad ay ku dalbanayso hay'adii ama shakhsigii ku lug yeesha howlahan waxaa laga qaadaya tallaabo waafaqsan xeerarka waddanka. sidoo kalena wasaaradda arrimaha gudaha waxay qaadaysaa tallaabooyin dhowra oo ka mid ay tahay in lagala laabto shahaadada ruqsasiinta. waxay sidoo kale wasaaraddu ay shaacisay hay'addii ku caddaato inay ku jiraan xubno ka mid ah shabaab iyo daacish wakiil xubno u soo noqday in iyagana laga qaadi doono tallaabo. sidaa daraaddeed hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga waxaa la adkaynaya inay u hoggaansamaan digniinta kor ku xusan ayaa ugu dambayntii lagu yidhi warka qoraalka. dowladda dhexe Soomaaliya ayaa horay u soo saartay digniin la xiriirta la macaamilka iyo in loo hoggaansamo awaamirta shabaab iyadoo sidoo kale horay loogu goodiyey in tallaabo adag laga qaadi doono ciddii lagu helo amarkan. waa fariintii ugu dambayso loo diro argagixisada iyo kuwa la shaqaynaya ama hay'adaha la shaqaynaya. wixii ku soo kordha daawadayaal waan idiin soo gudbin doonaa oo dib ayaan ka faahfaahin doonaa insha Allah. qaybtan halkan ayaan ku soo gabagabaynaya. nabadgelyo.